ciidamada Kenya mar kale waxay weerar ka geysteen gobolka Gedo. wararkan ka helayno gobolka Gedo waxay sheegayaan in mar kale diyaaradaha Kenya ay duqeymo hor leh ka geysteen qayb ka mid ah gobolkaasi. duqeymaha oo ahaa kuwa isxigigay ayaa saacadii la soo dhaafay ka dhacay deegaano dhowr ah hoostaga magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. wararku waxay sheegayaan in deegaanada la duqeeyay ay ka mid yihiin Caws Qurun, Garsaal, Xisaguur, Dhamas, Likooley oo dhammaantood hoostaga degmadaasi. deegaanada ay duqeymuhu ka dhaceen ayaa waxa sidoo kale lagu soo waramayaa inay ku nool yihiin dad reer miya oo u badan xoolo dhaqato. wararku waxay intaasi ku darayaan in duqeyntaasi lagu laayay xoolo aad u far badan, gaar ahaan geel ay dhaqanayeen dadka ku nool deegaanadaasi. waxaa sidoo kale jira barakac ay sameeyeen dadka deegaanka si ay uga fogaadaan waxyeelo ka soo gaartay duqeymaha ay ka fuliyaan ciidamada Kenya. maalmihii ugu dambeeyay waxaa gobolka Gedo ka dhacay tacadiyo ay shacabka u geysanayeen ciidamada Kenya oo dhawaan dil iyo dhaawac ka geystay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. balse maanta madaxtooyada Soomaaliya waxa ka soo baxday warqad kulul oo loo diray AMISOM si ay wax uga qabtaan ama ay uga jawaabaan falka Kenya ay ka geysteen Gedo. haddaad ku cusub tahay janaalka subscribe saar, sidoo kale like